ما سنت ولا الفاكهة مركوا وبريء waxaan ku barisanay magaaladii Tigtiyo ay soo galeen ciidamada militariga oo oraallo hub weyn ma taqaana ay saaran yihiin oo hubka suuga noo kala loo yaqaan ay saaran yihiin bishikayaal marka ciidamadaasi waxay soo taageen la wareegeen hoolalkii shirarka sida hoolka sayidka iyo hoolka qaryaandoodan dhinaca madaxtooyada marka muddo ilaa iyo 3 saac ayay taaka waayahay marka ma la ogaaday sababta arrintan keentay ma weli lama ogaanin annaka waxaan ka warhaynay ilaa shalay toole waxaa dadka soo dhexmarayay waxaa shiraya baarlamaanka deegaanka waxay sameynayaan codbixinta qaadaya afkiisa waxay sameynayaan qodobka Soomaaliya saddexaad ee dastuurka Itoobiya soo dhigayo baarlamaanku wuxuu ka garaa dawladda Itoobiya ee uu ku deyn kara deegaanka Soomaalida marka baarlamaanku wuxuu taas u qorsheynayaa iyo waxa taas la dhex mariyay kadib annagu waxba lama ogeyn taaka waxa la filayay inay baarlamaanku shiraan laakiin waxaan ku soo wadaraysinay oo mataqaana ciidan haysto hooyalkii iyo meelihii taagan oo jooga kadib dhalinyaro iyo shacabkii magaalada baa dhagaxyo iyo waxaa ku furay oo isdhexshiideen kadib iyaguna xabad bay ku fureen dadkii dhagaxa ku tuurayay ilaa 2 qof ayaa ku dhimatay oo ku nafwaayay kadib markii 2 qof dhimatay iyagiina meeshii way ka baxeen oo hooyalkii way ka dhaqaaqeen waa laga caysay waxaa dhacay rabshadaynta ka balaadan waxaa la bilqaysay dhammaan maxay ahayday waxa alla wixii qoomiyadii kale ee deganaa meheradii ay lahaayeen baa la bilqaysay bangi oromadu leeyahay hataa waa la bilqaysay 2 kaniisadood magaalada ku yaalay labadii waa la gubay hadda magaaladu bandow ku jirtaa marka xaaladdu waa sidaas dadka dhintay guud ahaan waa imisa oo rabshadahan ku dhintay yaase dilay walaal dadka weli lama ogaanin dadka firadooda lama ogaanin ani waxaan ahay goobjooga meeshaan joogay waxaan arkay indhaygaana 2 qof baan ku arkay laakiin weli lama ogaanin hadda ilaa hadda dadkii rabshadii baa socday xilligana kula hadlay rabshadii baa socday ma garat ma ciidamada militariga ayaa dadka shacabka rasaas ku furay ha markii hore la dhexshiyay ciidamada militariga rasaas ku furay ilaa 2 qof bay rasaastu ku dhacday oo dhintay kadib intaa wixii ka dambeysay maxay ahayd dadku way garoodeen waxay u garoodeen meheradii iyo qoomiyadii kale ma garat waayahay waxaad iga warantaa madaxweynihii deegaanka hadda iyo baarlamaankii halkay ku sugan yihiin xaaladooda waa sidee madaxweynaha deegaanka annaka ma ogin maadaama ciidanku meesha soo galeen inay qabsadeen kale weli ma kala ogin baarlamaankiina saaka meesha si loogu diiday way ka kala tegeen wax dambe oo shiro qabsadayna ma jirin magaalada dhan hadda bandow ay ku jirtaa ma garatay weli ma ciidamadii militariga ayaa jooga mise way ka baxeen magaalada hadda way ka baxeen magaalada xeradoodii way naga laabteen hadda laakiin waa la filaya xilli kastana ay kusoo laaban karaan laakiin shacabkii oo gadooday oo ciidanka marka shacabka ka saaray magaalada iyaga ciidanka laftooda marka shacabkii magaalada hadda haysta waxba wax ciidan ma haysta magaalada dhexdeeda waa dadkii qoomiyada kale ana waa la bilqaysay aaway ciidamadii maamulka Soomaalida Itoobiya ee ammaanka sugay xaaladdu faray ka baxday marka qoladan xabadda ridayaan faray ka baxday marka qoladaas laftoodu waxay hadda ka qaban karaan ma laha shacabka marka ma joogaan iyaga magaalada mise iyana waa ka baxeen way joogaan hadda waxaa isku dayaa inay xaaladdu qabowdo laakiin way joogaan waayahay qodobkan aad leedahay baarlamaanku waxbay ka dhihi rabeen oo kulankooda uu la xiriiray maxaad inooga sheegi kartaa nuxurka guud ahaan ku jira qodobka dadka waa sida hadalka lahaa oo wali wax qabta kuma hayno waxay yidhaahdeenna maana ka hayn dadka shacabka ayaa waxay wadaan in baarlamaanka uu deegaanku leeyahay Itoobiya waxay kooban tahay dowlad deegaano dowlad deegaan kasta waxay leedahay dowlad u gaara iyo baarlamaan u gaara marka baarlamaankaasi wuxuu ku dhawaaqi karaa in ay ka go'aan Itoobiya inteeda kale marka arrimahaas maalmaha saddex waday iyo waxyaaba tashiish caynkaas jiray wax official ma jirin ma garatay waayahay
ugu dambeyn waa sidee xaaladda dadka ku sugan magaalada iyo guud ahaan dareenka ka muuqda jigjiga iyo deegaanka soomaalida kale guud ahaan walaal xamaasad dadku way xamaasadaysan yihiin waxay diidan yihiin in la faragelin lagu soo sameeyo oo dowladda Ethiopia hadda waxaa qabsatay oromi iyo soomaaliduna way isku dhaxsanayeen marka inay dowladdii oromada ayda qabsatay deegaanka soo farageliso ciidan military uu soo galo dadku ka diideen way wada kacsan yihiin dadku waa la diidan yahay waa mudaharaadayn kala wadaa marka xaaladaasaa taageerinaysaa wali waa rabshadiibaana socdaa waxaa la leeyahay deegaanada ay oromada joogaan qudheeda dad ayaa lagu dilay Soomaali ah oo arrin la xiriirta boobka iyo rabshadaha ka dhacay jigjiga awgeed arrintaa maxaa noo sheegi kartaa wali ana wax kama hayo wali aan jigjigaan joogaa laakiin sida caadiga markay ka dhacdo deegaanka Soomaalida markay rabshada ka dhacaan qoomiyadda oromada waxaas isku dhaco ama xadka ka dhaco iyagu sida caadiga deegaanka oromada Soomaalida dhex degan ayay ka jiraan oo mataqaanaa ay xasuuqaan hantidooda iyaguna boobaan horey saas u dhici jirtay marka laakiin aan hadda weli waxba kama hayo kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada jigjiga oo telefoonka toos iigu waramayay inoomana suuro galaysa inaan magaciisa sheegno sababa la xiriira amnigiisa dartiis